السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وإن السلام يا أصحابتي قالقة قبلها مسلمات كمل كستو جوكتان قبلها Soomaaliyeed aad aan u salaama waxa idin wada codsiga ay iga codsateen in aan idin soo duubo codsiga ahay maxaan baruurteeda ku dhimi karaa oo aan caafimaadkayga waxba u dhimeynin haddii aan nuujisa ahay waxaan rabaa inaan idin sheego hooyada nuujisada ah ama uurka leh ama maxaa la dhihi jiray rabto inay caloosheeda yareyso nuujisada ah rabto inay jirkeeda dhinto nuujisada ah waxyaabo oo u roon oo jirkeedana ay ku yareyn karto miisaankeeda uu ku dhumaayo ay bishii ku dhumin karto bishii ay ku dhiman karto 5 kiilo ama 7 kiilo per month ay ku dhumin karto bishii iyadoo nuujinayso ilmaheedii caano fiican u helayo fiitamiino iyo nafaqo u helayo haddana maxaa la dhihi jiray miisaankeeda ay dhumin karto abaa gabdhaha walaalahay waxa u sheegaya bahalkaas u jeediin waa kiniin waaye asagoo budo ah jiro waxa la dhahaa spirulina wuxuu ka samaysan yahay algae geedka algaeha ah oo ka samaysan yahay waa biyo meel lagu keediyay oo maxaa la dhihi jiray la fayo dhowray la keediyay then sidii beerta kale loo sameeyay sidii beerta looga keenay haddana loo warshaday aan wax kiimika ah ku jirin waxa soo saarta shirkad la yiraahdo GXN oo Malaysia ku taalo oo caam ah adduunka meel allaale meesha ka joogtid waa ka helay insha Allah meel walba ka helaysaa oo aad joogtid ama Yurubta ama Afrika ama Aasiya ama Asia meesha joogtid adduunka dhan waa ka helay insha Allah wuxuuna ka samaysan yahay algae waana spirulina maalintii waxa cunaysaa 8 xabo ilaa 9 xabo 6 xabo normalka 6 xabo ilaa 9 xabo waa marka habeenkii waa ku casheynay hadaa ilmo yar nuujisid ilmahaaga uu nuugayo naaskaaga hilibkaagana uu badan yahay hadii jirkaaga uu balqo ama uu jilco waa isagana isku adkeyn kartaa oo jirkaaga ku soo aruurinaya hadii ilmahaaga wuxuu cunayay iyo caanihiisa wixiisa caadi u siinay naaskaagana caadi u siinaysaa walibana ogow hadii xataa naaskaaga caanaha ku yar yihiin oo kiniinkan isticmaashid caanaha naaskaaga way badanayaan borotiinada ku badanayo multiple vitaminska ku badanayo vitamin D ga ku badanayo ilmaha miisaankiisa dareemay inuu cuslaanayo ilmaha miisaankiisa marka dareentay inuu cuslaanayo laakiin adiga quraac iyo waxa ka dhiganay casho miisaankaaga totally is dhimaya haddii adiga cunadaada iska caadiga ah cunaayo oo aad cuntid miisaankaaga wuu zaa'ida oo mesela waxa laga yaabaa in aad caato tahay ama maxaa la dhihi jiray u baahan tahay in miisaankaaga ku siyaadisid ama dhiigaaga ku badisid cuntada bacda cuntada kadib aad cunaysaa insha Allah haddii aad cuntada ka hor cuntid wax dhiba ma lahan asagana baruurtu ka guba laakiin wuxuu jirkaaga u dhisayaa cuntada ka hor nus saac cunaysaa jirkaaga u dhisaa marka options badan loo isticmaali karaa waxa kale oo aad u muhiim ugu yahay gabdhaha uurka yar leh ama marxaladda stage 1 ka ku jiro first trimester ka waxa la dhaho ku jiro oo u fiican yahay gabdhahaas wuxuu ugu fiican yahay waa walac ama ilmo yar caloosha ku wada oo bilaheeda ilaa 3 ilaa 4 ilaa 5 waaye waxa hoos u dhacay elements badan oo jirkeeda kamid ah dhiig badan hoos u dhacay marka full of iron waaye iron ta ku badan waxa kale oo ku badan maxaa la dhihi jiray vitaminada noocyadooda kala duwan hadee gabadha xataa aysan waxba cuni karin biyo bas ay ku cabto wuu uga filan yahay cunto oo dhan uga filan yahay gabdho badan oo isticmaala jiro just contact gareyn kartid la hadli kartid sidoo isbedel ugu sameeyo jirkooda waxa soo kabsanayo jirkeeda waxa soo kabsanayo ilmaha koriinkiisa kala qayb qaadanaya vitaminada kala qayb qaadanaya caafimaadka marka waxaan uga faa'iideynaya gabdhaha walaalaha Soomaalida oo dhan muhiimada uu leeyahay hadee uur leedahay hadee nuujiso tahay hadaysan uur lahayn ama aysan nuujiso ahayn hadii jir iyadoo hore u cayilaan jirta hilibkeeda inta isdhimay oo jirkeeda uu dabcay oo kale oo dabacsanaantaas oo kale ay diideyso
waxaas oo dhan uga faa'iideynaa inay miisaankeeda ku lumiso inay jirkeeda ku dhisto iyo in maxaa la dhihi jiray ilmaheeda ay ku kobciso ilmaha yarka ah 6 months ka xataa markuu dhasho 4 bil ilaa 6 bilood ilaa iyo maxaa la dhihi jiray sanad hadduu jiro kale caanaha xataa waa ka deyn kartaa asaga masaasad ugu shubaysaa afka u galinay masaasada inta ugu shubtida afka u galinaysaa oo maxaa la dhihi jiray sidii caanaha kale u qaadanayo laana waa cunto diyaarsan oo qafiif ah oo ku filan ilmihii wax walbana uga filan value of nutrition kiisana usoo dhigaa insha Allah asagoo sawir ah value of nutrition uu leeyahay bar 1 gram halkii gram nutrition uu la mid yahay insha Allah asagoo sawir ahna waa idin soo dhigaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo waa kaas